bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu sameyneynaa haddaba qeybtii ahayd maamulka aynu sameyneynaa. halkaas aynu tegeynaa, waxaan kusoo dareynaa new folder, waxaanu bixinaynaa admin, waxaanu kusoo dhexgelinaynaa afar folder ama afar file afar file baan dhexgelinaynaa. fileka koowaad waxaa la yidhahdaa index.php, ka kusii xiga waxa weeyaan isna la yidhaahdaa menu.php, waxaa kusii xiga haddana fileka cusub ee la yidhaahdo isna home.php, waxaa inoogu sii xiga fileka la yidhaahdo style.css. waxaanu tegaynaa marka hore indexkan furaynaa, index fileka furaynaa, labada beriga waan ka saaraynaa, tagga beriga waxaan kusoo qoraynaa, waan kusoo daraynaa frameset, leenahay frameset calls oo tag baan ka dhigaynaa boqolkiiba 25 ka dhigaa, 25 ka labaadna xidig buu noqonaya. inta hadhay ameeladii waxa weeyaan laba column baan u qaybinaynaa. columnka koowaad waxaad siinaysaa baan leenahay bidix inoo xiga 25, ka midig inoo xiga waxaad siinaysaa hadhaaga, inta hadhaaga dhan baad siinaysaa. waxaanu sameyneynaa markaan siinaynaa frame waxaan siinaynaa frame src giisa, sourceka waxa weeyaan baan leenahay oo bidix inoo xigaya kan la yidhaahdo menu no resize, ka labaadna haddana frame baan leenahay, frame src giisna wuxuu noqonayaa kan la yidhaahdo home. name kan name baan siinaynaa, name la yidhaahdo markaan siinayno home isna no resize. saasaan labadaa ugu soo darnay. iminka labada haddaan jeegalayno F12 gujino, waxaad arkaysaa inuu inoo sameeyey xaggana waa kii loola jiray, kana waa kii bidixda ahaa menu, kana waa home, qeybtana waa qeybtii home.php. waxaad arkaysaa frameku inuu aad u weyn yahay. border baan siinaynaa, ama borderkana sheegayaa f1, borderka waxaan siinaynaa 0, borderka waxaan siinaynaa 0 si uu meeshan uga qariyo. ama dadna waxaad siinaysaa 0.5, wan buu doonayaa laakiin naga daa, uma baahnin inagu imika. soo dhigay saan doonayna weeyaan. waxaan ku shaqeynaynaa haddaba qeybta menuska, menu.php baan tegaynaa, waan soo furnay. waxaan sameynaynaa haddaba div baan soo kordhinaynaa, aan u bixinaynaa class baan siinaynaa la yidhaahdo menu. xaggan ka xidhaynaa, waxaan soo dhex dhigaynaa haddaba ulkan xidhaynaa, waxaan soo dhex dhigaynaa haddana li list, oo waxaan soo dhex dhigaynaa anchor ama links waxaan kusoo furi jiray href, calaamadaasaan siinaynaa iminka mabda'iyan index.php inoo xidheeda, linkana inoo xidh haddana listka. intaasaanu soo qaadayna haddaba. waayahay, markaan intaa dhammayno waxaad arkaysaa haddaba, markaan halkeenii tagno waxaad arkaysaa inuu inoo soo kordhiyey qeybtaa cusub. qeybtaasaan haddaba habaynaynaa, waxaanu tegaynaa style sheetkan soo jiid oo heerka dhex dhig, qeybta head aan dhex dhignay save garee. halkaas halkan inoogu soo kordhiy marka
waxaan tegaynaa haddaba soo qaadaynaa kelmadda menu ama classka menu soo koobi garaysana wax ugu qaldin waxaan leenahay udis balan aan siinaynaa waxaan siinaynaa boqolkiiba udiskiisa waxaan siinaynaa boqolkiiba 25 waxaan siinaynaa background color baan siinaynaa oo ah F9 border baan siinaynaa oo ah thin ama 1 pixel badhe 1 pixel solida noqonayo 3c waan tegaynaa haddaba halkeenanu jeegaraynayna haddana u fiirso haddaba intaasuu noqday waan ka yar badinaynaa waxaan siinaynaa boqolkiiba 45 u fiirso haddaba inoo qariyay iminka sax saan doonaynay ku yar ballaarinaynaa boqolkiiba waxaan siinaynaa boqolkiiba 70 baan siinaynaa ka yar ballaaraynta hadda waan ka saaraynaa qaybtan boqolkiiba boqol iska dhig iska dhif boqolkiiba boqol dhe haddaba waxaan u baahanay inaan ka saarno body baan siinaynaa waxaan soo qaadaynaa haddaba qaybta classka ul-ka waxaan leenahay paddinggiis waxaan siinaynaa 0 pixel haddana waxaan soo qaadaynaa qaybta waxaan u baahanay li list stylekeeda waxaan siinaynaa none u fiirsa haddaba isbeddelka dhacaya iminka paddingkii waxaan ku dhejinay gidaarka waxaanan siinay none ayaanu siinay dhibcii halkan yaalay live u fiirsa halka saasuu noqday waxaan u baahanahay haddana paddingka waxaan siinaynaa haddaba qaybta bidix baan kasoo yardurkanaynaa waxaan leenahay xaggaas waxaad ka siisaa 0 pixel waxaan kasii yarsiinaynaa padding left paddingka waxaan ka siinaynaa xagga sare 9 pixel midigna 0 pixel hoostana 9 pixel midig waxaan ka siinaynaa waxaan leeyahay bidix waxaan ka siinaynaa 5 pixel saasoo kale inoo noqonaya iminka markaan xaggeena tagna jeegarayno waxay noo siiyey iminka inoo kala fofogeeyey sidaad arkaysid waxaan u baahanaya haddaba qaybta eeda oo ah ankarka kalarkeeda waxaan siinaynaa marka hore waxaanu siinaynaa waxaan siinaynaa 3 waxaan kala sameynaynaa border baan siinaynaa ama text decoration baan siinaynaa text decoration aan uga jeedno laynka hoos yaalaan len doon inaan ka qaadno nan baan leenahay nan halka inaan tagno u fiirsa markaa uu ka qaaday laynkii hoose uu ka qaaday waxaan doonaynaa siino haddana powder baan siinaynaa haddaba powder liska powder siinaynaa waxaan siinaynaa borderka waxaan siinaynaa 1 pixel solid waxaan kala siinaynaa F90 ayaan siinaynaa waxaaba tirahdaa waxaa ka sare top mid sare ha noqda mid saroo keliya ina noqda u fiirso markaa si wanaagsan qurux badan ayuu nagu qariyey
waxaan u baahanahay haddaba marka aan dul marino in isbeddel ina siiyo halkan horta aan tagno indexkan tegaynaa halka 20 ka dhig weer balaaran yahay waxaan u baahanahay haddaba markaan dul marno inuu siro qurux badan aan weer habayno waxaan leenahay markaa backgroundka haggana waxaan leenahay transition waxaan doonaynaa qaybta backgroundka background kale waxaanan siinaynaa weliba 2 second se markaa qaybtan dambe markaan u nimaadno hover waxaan leenahay background color waxaanu siinaynaa leftigeeda waxaan leenahay haddana mar labaad inoo soo qaado qaybta eeda ankarka kalarkii maadaama la bedelay si laftiisa inoo bedelo aan siina markaa caddaan saasaan ku bedelaynaa markaa halkaasa la soco qaybtan iska masaxaynaa waayahay soo refresh garee markaan dul marno u fiiriso waxa dhacaya isbeddelka dhacaya backgroundku isbedelayaa halkan isbeddelka waxaan ku nidhi 2 second bay isku beddelaysaa haddana qaybtaa ka saarno u fiirso qaybta haddaan iminka ka saarno waan ka saarnay iminka backgroundka markuu isbeddelayo markiiba wuu isbeddelayaa kani markiiba isbeddelayaa xaggana saameyn yaroo qurux badan waxaad moodaa inuu soo ifbaxayo midaba iminka dhalanayo kale u fiirso isbeddelka labadaas ayay kala leeyihiin markaa qaybtaasaan iminka ka dhigaynaa minionskeedii oo inoo horeynaysa control panelka xaggan u sarreysa intaanan kasii gudbin waxaan u baahanay inaan sameyno div kale class baan siinaynaa iyada logo divka head waxaan u baahanay halkan u soo dhigno image baan soo dhigaynaa aan ku sheegayna looga inuu yahay saan taa usoo dhigna xagga waxaanu keenaynaa new folder amg-ga waxaan tegaynaa halkan google inoo gal waxaan soo qaadaynaa google anisawir baan ka soo qaadaynaa google waxaan ka soo qaadaynaa qaybta image-ka waxaan gelinaa leenahay inoo soo qaadeen logo waxaad gashaa baan leenahay icon finder waa website aad ka helaysid website waxaad ka helaysaa icons fara badan marka 3 image baan u baahannahay logo iyo preview iyo home ama logout saddexsan u baahannahay saddexsan iminkaan leenahay inoo soo saar intuu inoo baadhayo haddii jira wax saameynaya ama isbeddel aad doonaysa ad ku samayn karaysaa xagga waxaan leenahayba border baad u sameynaysaa border border baan left uga sameynaynaa left markaan uga sameyna waxaan leenahay waa 5 pixel waa solid waxa weeyaan kalarkiisu f50
halkaa waxaanu siinaynaa sababtaa saas ma ahayn border left baan siinaynaa halkan oo iyana ah 2 second waan soo refresh garaynaynaa haddaba u fiirsa markaa u fiirsa borderka halkaas uu soo baxayo soo badiba 9 pixel waxaa ka dhigtaa 9 pixel xaggana hal second ka dhig u fiirsa markaa borderkaasi waxaad moodaa inuu soo baxayo xaggan kasoo durkaya gidaarka u fiirso marka saas oo kale ayuu kusoo qurux badnaanayaa icon finderkiiba weli baadhayaa inagu calcumuum waxaan uga baahannahay waa image wax kale maaha waxaan tegaynaaba waxaan tegaynaa computer markaan tagno waxaan tegaynaa haddana local desk app w3w waxaan tegaynaa kian sameeyey wuxuu ahaa rasmi site imagekan waxaan uga baahannahay previewga iyo logouta ayaan uga baahannahay labadaasaan soo qaadanayna labadaas nagu filan imika labadaas nagu filan app 3w waxaan tegaynaa islamic blog imageka waa kaa halkaasaan dhex dhigaynaa iskaba xidhkan hagana inoo soo refresh garaa markaa abuu ku jiraanba waxaan u baahanaya hadda labadaa inaa soo qaad ataka inaa soo fur laba inaa soo qaado halkanaan soo dhigaynaa cancel preview isna cancel markaan jeegarayna haddaba waxaad arkaysaa xaggan sare laba inoo soo dhigay labadaasaan doonaynaa midna logout ka dhigno midna preview waxaan siinayaa labadaba center centerka inoo xidh markaa halkan laakiin nagu soo xidh markaan soo jeegarayno waxaad arkaysaa labadiiba inay bartamaha inoo yaalaan iyo sidaan doonaynay marka kan waxaanu siinaynaa previewga waxaan leenahay waxaan siinaynaa a xariif qeybta dibadda u bax waxaan siinaynaa indexkaas uu inoo jeegaranaya isagu isbedelka indexka ku dhacaya xagana ku xidhina haddaba markaan soo saarno waxaan leenahay targetkiisa target waa blank mid kale nagu dhex furban leenahay mid halkan ka baxsan oo daaqad kale nagu furban leenahay ama taab kale preview markaan idhaahno aan gujino waxay noo soo furmaya taab cusub oo ah markaa homepageka markaa inoo soo baxaya homepageka inoo soo baxaya haddaba maanta inshaada qeybtan waxaan ku deynaynaa horta internet inaan sameyno badhinkii logoutka laftigiisa xaggan aan tegaynaa koodkan waxaanu sameynaynaa isana horta xagga inoo xidh iyadaan soo furin halkaas kasii xidhaynaa soo furi rabno rif waxaan leenahay logout isaga laakiin targetkiisa wuxuu noqonayaa parent wuxuu noqonayaa
parent ka gudihiisan leenahay u fiirsa markaa isbedelka ku dhacaya markaan ka baxno ku guuleysatay ka bixida accountka saasuu markaa accountkii inooga baxay logoutkii marka insha allahu tacaala waxaan dooneynaa inaan kusii xidhno qaybo kale aan kusii xidhno si markaa uu inoogu shaqeeyo si qurux badan inoogu shaqeyn karo website-keenii xaggan aan ka dhigno editorkii xaggan aan ka dhigno kusoo darno sectionskii iyo wixii oo dhan insha allahu tacaala saas oo la socon doontaan iyo ka faa'iidaysi wacan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.